بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ونكسن بهذا هوذا نقل حريداي برباري قلب ونكسن كسو دبادا وعيقا بربرتا وقلبنimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 27ka bisha afraad ee sanadka 2013 galabtana waciga barbaarta barbaare waxaan intiisii badan ku falanqeyn doonaa isla markaasina marti noogu ah Cabdullaahi Xasan Ashcari oo gudoomiye u ah ururka Youth for Somalia YFS oo marka la micneeyna ay tahay dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay ururka Youth for Somalia YFS waxyaabaha uu qabto iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay ka doonayaan iyo arimo fara badan ee ku saabsan dhalinyarada ku tacalluqa ayaan wax ka Xasan Ashcari. Assalaamu calaykum Cabdullaahi Ashcari soo warahmatullahi wabarakatuh ugu horeen waa salaamantihiin dhammaan bahda warbaahinta gaar ahaan radio mustaqbal aad ayaan aga mahadcelinayna fursadan qaaliga ah ee noo siiyeen in aan kala qayb galno barnaamijka wacyiga barbaarta oo aan filayno in aan waxyaabo badan ku soo bandhigi doono oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada Soomaaliya. waa tahay arrimaha dhalinyarada ururkiina Youth for Somalia YFS marka laga hadlayo muxuu qabtaa وسؤال aad u muhiim ah YFS ama Youth for Somalia ama dhalinyarada Soomaaliya u istaagtay waxa la aasaasay 2010 waana urur aan dawli ahayn waan urur aan faa'iido doon ahayn waan urur dhalinyaro ay hogaamiso waxa uu ka shaqeeyaa arrimaha dhalinyarada wacyigelinta xuquuqul insaanka iyo u doodida xuquuqda guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta targetkiisana waxa weeye dhalinyarada iyo caruurta in ay helaan xuquuqdooda. waa gartay tani inta aad ururkan dhidibada aad u aasteen Youth for Somalia YFS guulo aad gaarteen ama gurmad joog kala duwan oo dhalinyarada aad u qabateen ma jirtaa waa su'aal muhiim ah YFS jiritaankeeda ilaa ay hadda waxay u qabsoomay waxyaabo badan haddii aan lahayd dhinaca arrimaha bulshada YFS waxay ka qayb qaadatay gurmadkii abaarihii dadkii abaarihii ay ku dhaceen sanadii hore YFS waxay kaloo ay qabatay wacyigelino xaqa xuquuqul insaanka ah ama tahriibka waxa kaloo ay ka qayb qaadatay baraarujinta dhalinyarada dhinaca nabadda isdhaxgalka YFS guud ahaan waxa ay target saartaa siinta tababaro ama seminaaro dhalinyarada waxa kaloo qabataa dhinaca sportiska koox muxuu ahaato la ciyaarta kooxaha ka jira gudaha dalka oo laho YFS FC waxayna soo bandhigaan ciyaar qurux badan oo ka turjumayso nabadda isdhaxgalka dhalinyarada marka ciyaartaas laga reebo dhalinyarada wax muuqato oo aad u qabateen wacyigelino kale inaad u sameysaan isku keentaan dhalinyarada inaad isbartaan degmooyinka kala duwan ee 16 degmo ee gobolka Banaadir haddii gobolada dalka Soomaaliya ay noqon lahayd YFS waxay qabataa kambeeno ama wax si loo yaqaano ama isku soo bax ama isku imaasho lagu muujinayo isdhaxgalka iyo nabadda sida kii aan qabanay February 2012 oo ku aadanay nabadda isdhaxgalka dhalinyarada oo lagu qabtay xeebta Lido YFS waxay qabataa munaasabadaha 15 May ama 1 Luulyo waxay muujisaa doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada nabadda isdhaxgalka YFS waxay qabataa kulamo ama doodo looga doodayo danaha arrimaha waxay soo bandhigtaa arrimaha xasaasiga ah ee quseeya dhalinyarada waxaan u soo bandhigtaa kooxaha quseeya sida ururada caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo bulshada guud ahaan sida soo bandhigayso sharaxaad bulshada ka sii ku dhigeysanaysa waa maasan tahay waxyaabo marka la soo bandhigayo waxa lagu soo bandhigaa waxa jiro wax la yiraahdo protection cluster oo ka dhaca Muqdisho ka dhaco protection clusterka waxaan ka nahay anaga active member ka nahay waxaan geenaa warbixinada ama tacadiyada loo geysta dhalinyarada iyo caruurta waxa kaloo jiro social media adeegsanaa sida Facebook iyo YouTube iyo Twitter oo aan ku bandhigno arrimaha dhalinyarada xuquuqul insaankooda ama guud ahaan xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta dalka waxaan kaloo sameynaa bandhig lagu soo bandhigayo oo media u wacno sida muxuu ahaato media local media ay ka soo qayb galaan oo lagu muujinayo doorka ay ku leeyihiin dhalinyarada arrimaha soo idin waa gartay imise xubnood ayuu ka kooban yahay ururkiina waa su'aal aad u muhiim ah waxa u maleysaa in ururada ka jira dalka aan kaga duwanahay YFS waxa weeye waxay sameysaa wax la yiraahdo member registration open waaye waana si volunteer looga shaqeeyaa
volunteerkeeda wuu furan yahay sanadkii mar baa la furaa marna waa la xiraa hadda memberska ugu yaraan adiga